maamulka Soomaaliland waxaan leenahay waligeed Soomaaliland mana noqon doono waa munaasabad weyn oo ay ka soo qayb galeen dadweyne aad u fara badan oo ku nool magaalada Melbourne iyadoo ujeedaduna ay ahayd sidii loo taageeri lahaa dadka ka soo jeeda gobolada SSC ee colaadu ay ka socoto 15 sano ka hor ayay waxay xoog ku qabsadeen magaalada la yiraahdo Laascaanood iyo gobolka Sool 15 ka sano waxay dadka u sheegayeen adduunka in Somaliland wadan la yiraahdo laga wada aqbalay meeshan oo food la sameeyay oo lagu raacsan yahay iyadana walaalayaal waa been dagaalkii iyo isku hortaagidii lagu bilaabay maalinka ilaa bariga waas magac walba loo bixiyo ama Khaatumo dheh ama waqooyi bari dheh ama maxaa la yiraahdaa Sool iyo Sanaag iyo Cayn SSC magac doonto bixin magac bacna badan ma sameeyo waxa macnaha sameeyo waa maamul in la sameeyo waxaana rabaa inaan la hadlo maamulka Puntland sidoo kale inuu taageero maamulkaasi soo socda insha Allah mustaqbalka dhow imaan doona inay taageeraan oo gacan ka siiyaan tolkay waxay yiraahdaan markii la yiraahdo war waad isku mid tihiin oo dhulbaantii iyo warsagal waa isleeyahay maamul wada dhisataan waxay yiraahdaan dhulbaantii is too fast gaariga 5 bay ku wadaan anigu maxaan yiraahdaa warsangalugu waa too slow marka combination fiican bay keenaysaa markaan isku darsano 50-60 safe drive baan samaynaynaa calankaas ama waxaad ku dartaan dooni shaaximan oo cadan u socota maakhir wuxuun maamulka waa wada dhisanaynaa balloon way hadduu Ilaahay yiraahdo maadaama Laascaanood laga hadlayo waa in laga hadlaa midnimada Soomaaliya maamulka muxuu ahayn Somaliland waxa weeye waa ognahay 30 sano hadda dawladaha anu hargeysana waa tagaa oo hadda last 10 sano laba goor baan tagay xamarna waa tagay marka meelo badan baa Soomaaliya aan ka horayaan tagaa marka maamulka Somaliland waxa badan oo u kordhay hadda 30 sano ay raadinay xorriyad ay goonisu taageen wax badan u kordhay ma jiraan hatta madaxtooyada ay degan yihiin waa tii dawladii maxaa saabir ka tagtay ay maamulku degan yihiin marka wax badan uma kordhin marka waxa ay raadinayeen marka intaas ay raadinayeen waxa inta ay raadinayeen oo goosadii iyo waa goosan ay lahaayeen oo hadda waxba lagu helin oo waxa laga faa'iidin oo dhaqaatiir fiican lagu helin oo waxbarasho fiican lagu helin maxay macna sameynaysaa dadka Soomaaliyeed ama dadka reer SSC Khaatumo waxa ay u barakacayaan midnimada Soomaaliyeed iyo calanka buluuga dadka reer Khaatumo waxay u dhaawacmayaan midnimada Soomaaliyeed iyo calanka buluuga dadka reer Khaatumo waxay u dhimanayaan midnimada Soomaaliyeed iyo calanka buluuga waxa sidoo kale halkan fariin looga diray madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud fariinteedu marka koowaad waxa u diray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud dawladdiisa iyo golaha baarlamaanka waa in fursad cajiib oo haysta waa inuu asoo cidna dulmin Soomaalinimada raadiyaa walaalaheena kale ee waqooyiga ayaga naftigooda haddii wax tabanayeen wixii ay tabanayeen qayb ka mid ah ka dhacay Laascaanood maanta waxaan halkan kala hadlayaa maamulka Soomaaliland iyo madaxweynaha dawladda Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maamulka Soomaaliland waxaan leenahay waligeed Soomaaliland mana noqon doono inta aan jiro ee xusulkayga xabaalka sareeyo gabadheed naga nooshay wiilkii naga nooli ma noqonayno Soomaaliland ee u sheega naftiina runta iskana dhaadhiciya namana khasbi kartaan namana waxay qowwadii idinka xoog weynaabana khasbi kari waaye please waan idin baryaynaa dad ehelaynu nahay waynu isdhalay walaalaynu nahay waa wada dhalanay naga daaya dhibaatadu kuma hayno dhulaad leedihiin ma haysano ingiriiskan baasad nala daba socotaa hortii xageen joognaa annagu wad nagu ogeydeen please na daaya waxaan kala hadlay halka madaxweynaha Soomaaliya Khaatumo isteed waa inaad ictiraaftaa oo aad ogolaataa haddaadan ogolaan khasabad ku ogolanaysaa dhalinyarada kacday revolution ma kacay madaxweyne waa inaad u fiirsataa xaaladooda oo eegtaa Laascaanood hooday baahan awgamilaha go'aankii la qaatay shacabkii gadoodayo oo gariidu ay haleeshay guryahoodu ay guteen gantaalada lala dhacay goobihii wacnaa bihii iyo lahayrkii gooho gurbahoodkii qaaxay intaasoo qaalalahaase waa in wax laga qabtaa qaarkoodna waxay ugu baaqeen maamulka Somaliland inay isaga baxaan deegaamadaasi waxaan fariin u dirayaa
madaxweynaha Muuse Biixi fadlan sida adiga aad u diiday in aad ka mid noqoto Soomaali weyn ayay reer Qaatumo ee SSC u diidan yihiin inay ka mid noqdaan maamulkaada marka fadlan tixgali shakhsiyadda qasab ma jiro maamulku SSC waa dawlad adigana dawlad baa tahay magaalada Laascaanood ayaa weli xaaladeedu aanay deganayn iyadoo weli ay ciidamada SSC iyo kuwa Somaliland ay isku hor fadhiyaan duleedka magaaladaasi waxaana garaadadu lagu amaanay talaabooyinka wanaagsan ee ay qaadeen iyagoo talada la wadaagay shacabka SSC garaadada SSC waxay muujiyeen mas'uuliyad weyn oo xilkasnimo ay ku jirto oo aqli uu ku jiro oo deganaani ay ku jirto oo ay dadkii ay mas'uulka ka ahaayeen ku maamuleen kuna dejiyeen sababtu waxa weeye in la isdhexyaaco wax badan baa ku kharibma laakiin markaad nidaam habaysan aad samayso dadkaaguna waa hagaagayaan waana ku raacayaan hogaaminta ay hogaaminayaan aad iyo aad bay qalcisay waana ku faraxsanahay waana ku mahadsan yihiin salaam baan meesha idinka soo gudbinaya anaga deegaanka Soomaali ahaan hadafkaygu wuxuu yahay waa garab taaganahay 100% marka siyaasadda Soomaaliya kaga aadan waa midaas waxa weeye in ummadda Soomaaliyeed la isku hayo oo midnimada ummadda Soomaaliyeed la xoojiyo qolana ayna qolo si dulmi ah ugu duulin maxaa walaalaheen loogu daawanayaa dhibaatada laba qof oo Soomaaliyeed baa is haysta qofka khaldan waa inaad qabataa hiilada sida diintu nafartayna waa sidaas haddaynu indhaha ka qarsanno oo la kala gabado taasi waajib ma noqonayso waajibkana saaran waxa weeye inaanu kala qabanno halkan ka bilaamay inuu ka ekaan doono Laascaanood laakiin deegaanadaas reer SSC oo dhan u gaari doono kana mid noqon doono deegaan ka mid ah deegaanada Soomaaliyeed ee calanka Soomaaliyeed laga taago waxaan baqaniga u jeedinayaa madaxweynaha dawladda Soomaaliya waxaan aad aan uga codsanayaa madaxweynaha Soomaaliya inuu arintaas Laascaanood ka socoto uu ka warhayo dadka reer Laascaanood waa dad Soomaaliya ma aha dad Somaliland waa inuu dadkiisa si aad iyo aad uga warhayaa SSC hanolaato dumarka iyo dhalinyaradii ka soo qayb gashay munaasabadan ayaa heestii caan baxday ee Sooley oo goobta laga shiday dareenkooda ku muujiyay waxaan halkan leeyahay walaalayaal thank you so much for showing us your support aad iyo aad baad ku mahadsantihiin annaga waxaan u taaganahay oo hiilanahay waa calanka Soomaaliya aad iyo aad iyo midnimada Soomaaliyeed waana munaasabadii ugu ballaarneed ee boqolaal Soomaaliya ay ka soo qayb galaan isla markaana ay taageeraan go'aamadii ay gaareen garaadada iyo gudida 33 ee ku sugan magaalada Laascaanood Ibrahim Umar Baafe wararka Somali TV magaalada Melbourne dalka Australia